maxamed xasan kabiir oo gudoomiyaha xaafadda waaberi ee magaalada baydhabo waxa uu nooga warramay isbeddelka laga dareemayo waddooyinka waaweyn ee xaafadan uu dhismay si jidkan oo lunsuubi jid oo limade man aragno hada jidteedii kale oo dhaanka mashruuca kale oo la kusuubiyahay kaabayaasha dhaqaale iyo waddooyinku waa halka laga dheehdo magaalada caasimada waana bilicda cid walba oo dhex istaagtay ay isheedu qabanayso waxaa si hagar la'aan ah wadajir ugu dhisay dadka deegaanka oo kaashanaya hay'adaha Samreb iyo DRC oo wadajir ku fuliyay dhamaystirka wadadan jidkan mayl ku suubiyay xaafadda waaberi iyo marnada DRC iyo shaqadoon oo yana kormeer iyo ku suubiyaase iska kaaladeen ya suubiyan jididkii hore iyo jidkan may ka shal duwaynaha haani hore mashruucaad marna beesamay ka darsadaan iyo suubiyaan laakiin jidkan jid oo xaafadna beesa ka darsati DRC ni beesa ka dhiibti way qaabka oo DRC ni beesa ka dhiibtay marnada xaafadna beesa ka dhiibti dadka ka shaqeeyay ba gudi oo xaafadda la ku hulyahay xaafadda waa bari sida oo la ogimay baaha lilaamadu laan kasta qofala ka saari ra'yeliska darsadi markaas kadib iyo marnada qaraan oo la aruuri oo guruguruna saari marnada markaas kadib ya DRC linsaadi osilinjey otiyayno ajibti marnada gudidii atana may soo bidahay akoon la furi oo DRC oo non kaaladana oo hornumo oo akoon ku furadaan oo yana siidi marnada akoonka sidii oo xaafadda la kashibi markaas kadib yana DRC yana baasida kashibti markaas kadib ya gudi kale la saari oo marnada oo suubiyaasa qaabka oo marnada baasida sayling isticmaalo phase 1 phase 2 phase 3 yalan isticmaalo baasida ma bees oo maray la habiyay oo meel taalin ma hayna bilowgiiba ayada shaqadoon waxa ay qaadatay doorkeedii iyada oo tababar u furtay gudiyo dhowra oo iska soo xuleen bulshadu wacyigelin ku saabsan wax wada qabsiga bulshada samaynta madal bulshada dhaqaale loogu ururinayo bulshakaab dhismaha gudi dhaqaale ururin oo ka kooban bulshada deegaanka oo conference madal deeri oo koonkana ninfuray oo koonka gudiga madal xulay la hagaaji oo conference degmada la saadi oo koonka wargadis la gori dahabshiila la halmari antaas dhameynay kala shaqeeyay tan shaqadoon gudiga iimaal shaqadoon iska la shaqeeyay gudiga naftada ka jari shaqadoon mayba nin gobatay tababarada madi hadhamaadan gaabka oo beesidii lan aruuriyo iyo jidkun mashruuc yahay nani baray mada tababarka la ku bahi haatan xaafidya sidii contribution lan aruuri lahay ha ka sameeyni haatan dadka deegaanku waxay ogsoon yihiin in wax wada qabsiga bulshada uu ka horeeyo wax walba oo cid qalaadi ku deeqdo mashruuc noo may ku baranay hordhaan may dheegi jarnay jidala dhisiya dheegi jarnay hadda ma dumarna usada jidka la dhisay hadda ma dumay ku faa'iiday intii una beesuna ka daranay ya marna usada ya ku faa'iidnaya